Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan gelinaa mar kale filimkii Saaxiriinta. Qaybahan waxay ka mid yihiin qayb uga cabsida badnaay. Haddii aadan hore u daawan labada qaybeed ee hore soo daawo. Hadda waxaan gelinaa qaybteena saddexaad. Duqda shaydaanta ayaa qoodbaynaysa. Waxayna leedahay gabadhii Prince aheyd ee ka tagtay ee guursatay waa in gacan lagu soo qabtaa. Midaana istaajinaysa saaxiradda. Waxayna weydiinaysaa waxyaabo la xiriira gabadhii. Waxayna leedahay gabadha waa fuudaa in la soo qabto, iyaduna waa marxabaynaysaa. Aad bay u fuudaa in la soo qabto. Wax walba in laga burburiyo aad bay u fuudahay. Sax waaye. Duqdu markaan waxay keenaysaa mid kale oo saaxiriinta ka mid ah. Waxayna u sheegaysaa inay iyadu u xil saaran tahay xilligan laga bilaabo inay ka howlgasho gurigeedii. Ayadu waxay leedahay awood bay leedahay ma geli karo, laakiin waxay leedahay doqonaa tahay habaqan. Waad geli kartaa gurigeeda gal, arrintan soo samee. Midda madaxa guduudan shayaadiinta ayaa la dirayaa. Gabadhii guursatay gurigeeda ayaa loo dirayaa. Halkan waxaa jiifo gabadhii guursatay iyo ninkeedii. Gabadhii loo soo diro waatanaa. Waxay samaynaysaa inay ka saarto qayb ka mid ah ilmo galeenka. Kadibna sidaas iga baxaysaa. Kadib gabadhii waxaa qabanaya xanuun baa qabanaya. Xilligay hurdayaan ninkiina hurdayaduna hurdayso xanuun baa qabanaya. Aad bay isu jiidaysaa. Aad bay u dhibsanaysaa xanuun sayd ahaya. Waxaa kacaya saaxiibkeed. Wuu eegayaa. Xanuun saydaa ku dhegan isaguna wuu eegayaa. Markaan dagaal toos ah ay galota saaxiriintu la galeen gabadhan. Laba sano kadib maxaa dhacay? Waxay yimaadeen isbitaal kaasoo isku baarayaan caafimaadkooda. Gabadhana baaritaan la marsiinayay, ninkana baaritaan ayaa la marsiinayay. Waxaan hore u soo raacay dhakhtarkii baarayay. Wax yaroo dardaaranna wuu siinayaa. Way u mahad celinayaan. waa mahadsantaa u leeyihiin. Isagana waa u mahad celiya. Waa mahadsantiin. Maca salaama. Habartii dhashay ninkan gabadha guursaday ayaa waxay u tegaysaa nin faaliya ah oo dadka faalka dhiga ah. Ninkan wuxuu qayb ka yahay dadka saaxiriinta ah oo gabadhan u heshiiyey. Gabadha wiilkeedu qaba u heshiiyey ayuu qayb ka yahay. Iyaduna waxay ugu timid dhibaatada haysata gabadhii nin uur yeelanaynin. Arrimahaas ugu timid. Marka wuxuu leeyahay maxaa qaldan? Waxba qaldan arkaa. Waxay leedahay wiilkeyga wuu guursaday. Gabadhiina wax uura ma qaadayso. dhibaatadaasaa jirta. Isaguna wuxuu leeyahay wax qaldan baan arkaa. Wax qaldan baa ii muuqda.
marka waxay leedahay arrintaasaa jirta. Gabadhu sababtay uur u qaadi la'dahay walahi sida wax mee ka jira wiilka xaggiisa wuu qoslayaa. Wuxuu leeyahay waa lagu yaqaanaa gabadhu ma ahan mid uur qaadaysa. ma garanayo leedahay waxa dhibku meeshuu ka taagan yahay. see u xalli karaa arrintan? ogu maadaama saaxiriinta uu ka mid yahay waa mid xaaladan wax ka og in gabadhan qolo kale ay haysato, qolada kalena waa qolo uu la shaqaysto. marka wuxuu u sheegaa dhibaatada jirtaba inay tahay gabadha ay tahay, gabadhana wiilku uu furo. wuxuu leeyahay gabadhu uur ma qaadayso. duqdu markaabaa indhihii kala taagmayaan. haddii uur ma qaadayso gabadhu waxay tahay wax ka mid tahay qolada yaa. adugu wuxuu leeyahay hadda waa inuu furaa. haddaad wiilkaada rabtid nolol fiican aad u rabtid gabadha waa inuu furaa. marnaba gabadhaas uur qaadi maysa, ilmana ma dhali doonto. haddaa adigu faalay u tag saaxirada u tagtid adigana halaag baa lagu dirayaa. duqdii waa kaasaa indhihii kala taagtay. ninkan wuu ku akhrinayaa bal waxa dhaca dhowr. ninkaa markay duqdu ka tagto bal arag waxa u yimaada. oo marka waxa u imaan kuwa saaxiriinta mid ka mid ah, odag weynaayo ka mid ah kuwa saaxiriinta u imaanaya. markaa wada qoslayaan maadaama wax dhalis la ogyahay oo ninkan xataa iyaga ula shaqaysto. barnaamijkii waa loo fuliyey, duqdiina waa la diray, wiilkii aa lagu diray. duqdi wiilkii bay ay hadda ku maqan tahay oo la yiri ka fur gabadha. gabadha maadaama dagaal xoog lagula jiro. gurigii gabadha iyo wiilkeeda yaa waxaa imaanaya duqdii oo faalihii usoo sheegay uu yiri wiilkaada gabadha hog bay ku ridaysaa. marka way la hadlaysaa, magaciisa u yeeraysaa. doosti 3 jeer baan magacaaga ugu yeeray tiran ku wacay. 3 jeeran ku wacay. sababta aan 3 jeer magacaaga ugu yeerana waa inaad gabadhaas furtaa. ilma ma dhalayso, gabadh ma dhaliisa weeye, waa inaad furtaa. gabadhii sidoo kale sheekada hooyadii wiilkay maqlaysaa, dhegtay usoo dhigaysaa. waxay ku sheekaysanayaan soo doxdeedu iyo ninkeedu. dhegtay bay u dhigaysaa. hase yeeshee ninka wuu ka diidayaa. hooyadu kusoo jeesana wuxuu leeyahay hooyo maya, ani gabadha waan jeclahay. ilma inay dhashay inay dhalinba gabadha mar walba waan jeclahay, mana furaayo. waxay leedahay maya ha burburin familkeena, ha burburin. hadaada gabadhaas furan familkeena burburaya. u hanjabaysa waxay leedahay familkeena ayaa burburaya. isagu wuxuu leeyahay maya hooyo markaa yeelayo, ay famil waxaa gama qusayaan. gabadha ani waan jeclahay, marnaba maya, marnaba ma furaayo. hooyo mar kale sheekadaas ha iigu keenin, ha ila imaanin. fur gabadhaas, mana furaayo. macasalaama hooyo. gabadhii bay soo raadsay. duqdina waxay leedahay haddaad furin waa arki doontaa, waana ka shallayi doontaa. gabadhi halkan bay ogeysaa maadaama ay maqasay sheekada dhex marayday ninkeeda iyo sodohdeed. brinsi maxaa kugu dhacay buu leeyahay. waxaad la oyeysaa, maxaa ku hela? waxaad la oyeysaa kaa oohinaya. hooyadaa bay tiri. hooyadaa waa maqashay. hadalkan ku sheekaysay inaad maqashay. ka ka raali gelina, ka raali noqo. waan ka xumahay.
inas fiiri wax walba oo dhacaan adeen ku rabtaaganahay lagama yaabo inaan wax walba kaaga si walba fudud kaaga tago qof walba war ay sheegay dartiis kaagama tegaayo adiga garabkaaga ana waa mahadsantaha laakiin ogow caruur waa u baahana waan u baahanaa laakiin adiga u baahana adna waa u baahanta aniga u baahana waa si walba samey karnaan sameynaa si walban ku raadi karnaa waa inaan ku raadinaa gabadha indhihii baa taagnaya markuu ereyada ninka ku leeyahay wada shaydaantaadi mar kale waxay falkaysaa arrin kale marka maxaa dhici doona qaybtan dagaalku waa sii fogaan